Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin wada salaam walaalay qaaliga quruxda badan soo dhawaada meel kasta adduunka joogtaan waa gabadhiini yareyd inantiini yareyd oo marna iska maqnaanaysa dee marna soo dhaceysa ma fahanteen iskaga dulqaata seetan igu qaata insha allah waana mahadsantihiin marka awoodo ayaa mulqaa soo gelinaya markaan awoodin awoodo waxaa waay xaaladaha way igu jijeexan yihiin saas u garado ma la fahmay maqal ma jiraa waa subax aliseeye waa weekendi guriga la wada joogaa caruurta waxaa lisoo jafa ma fahantay meeshaana duud weyna walaalo duud aanan garanayn baa isoo baxay bismillaahi maasha allah marka waxaa layidhaha yoogada rabna yoogadna sii yoogadka waxaan ugu kala shubaa baaquliyo ama weel qof kasta wiilka hore ayaan ugu shubay soo wiilka ayaan ka bilaabay qof kasta wiilkiisa markuu ku shubto halkaasoo iga fariisana insha allah marka waxay kusii sugi doonaan yoogadkan quraacda maanta waxaa raba maadaama xaafada la wada jooga in canjeero iyo maraq kasoo tuuro soo yoogadkana usii shubaa cabaarko markay cunaan yoogadkooda inta canjeerada ka qasaa ay ka faxeyso maraqa aan ka karinaya marka caloosha waxay kusii gaaraan ayay u baahan tahay meeshan waxaa waaye miiskii ayaa la wada imaaday kadibna waxyaabihiisa saarnaayeen xali looga kala hooydaan ka qaadi doonaa jaajarka sida daatadoo kaleeta marka waa kaas hadee yaa alxamdulilah calaa kulli xaal si nabad ayaan kusoo wada kacnay adinkana sidoo kale waxaan idin rajeynaya si nabad oo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ku jirto inaad kusoo toosteen maanta maalintiina inay idin wacan tahay sida anaga maalintiina noogu qurux badan tahay kaaliska arag qaanada haddaa aragtay qaanadan jikada ka tirsantaa waxaa la dhahaa qashin aruursaa la dhahaa wix allaale wixii la arko jaajarada waxyaabaha madaxa lagu sameysto waxoo dhan ayaa lagu aruuriyaa soo shiiqul kulliyaa la dhahaa qaanada waa kanahay mid meeshaan rafaarada waxaan arkay oo kursiga qaabka ugu fadhiista la marka waa iska caawiye waxaan dhahay kaale hor si fiican u fadhiiso si aad maxaan dhahay quraacda si fiican ugu cunto waa soo orday caagidihii yoogadka aan ka shubay ayaa dabooladooda ku xiray kadibna waxaa waay firiijka ayaan dalaqsi doonaa halkan waxaan soo dhigtay hilib lo ayaan soo dhigtay xaalid horeeto banaanka si oo barafka ugu dhaco iyo kilidaas kilida markaa bishii markaa soo adeeganaysa adeega ula socotinba adeega ay ku jirto waana marka ugu horeysa aan karso doona insha allah inkastoo aanan saas waaw ku ahayn reer kili iyo beerbeer iyo ma ahayn laakiin marka qaarkood way iga qabataa soo shumac ayaan halkan kusoo shitay kaaliska arag shumac markaa shidatay jawigan wuxuu ku noqonaa nuuc kaleto kula noqonaa ma fahanteen subax alisee markaa soo kacdo waxyaabihi iska soo kala xareey shumaciga ayaa shitan nalka ayaa halkaas dhac kasoo siistay caruurteydan halkaas ay fadhisaa ka daawanaya quraacdooda iyo cunayaan kadibna waxaa rabaa canjeero inaan qaso insha allah yoogadka turkishka yoogad ayaa halkaas soo dhigtay waxaan kaloo soo dhigtay galeyda jaalaha bur ayaan ku shubtay kulley burkan waxaa waa koob iyo waxaas kuma qiyaasi doono insha allah qiyaasta indhaha ayaan ka qiyaasi doonaa famil kasta iyo qiyaastiisana asaa garan doono maadaama anaga 4 qofood aan nahnay ilmahana wax badan aysan cuneynin soo burkii markaan kusoo shubay wax yaro galey ayaan ku daray kadibna wax yaro sokor ayaan ku dari doonaa fixisa ayaan kusoo daray kaaliska aragda canjeero kaaliska arag laga shakin karin ayay kusoo bixi doontaa insha allah soo qof kasta siyaabo kala duwan ayuu canjeerada u qastaa wayna kala duwan tahay qof kastana gacantiisa ayay ku xiran tahay sida u qasto maasha allah tabaarakallah kadibna waxaa waaye kaaliska arag wax yaro sokor ayaan hanta kusoo daray inkastoo sokorta marka hore aan sheegay laakiin waa kaas wax yaro cusbo ayaan ku dari doonaa kadibna waxaan ku dari doonaa hal qaando oo turkishka yoogad xabad ukun kaaliska arag canjeero aan laga hadli karin ayay kusoo bixi doontaa 30 daqiiqo ayaa sugaysaa 30 daqiiqo kadibna waxaa canjeeradaada dubanaysaa inaba caadi maaha soo ila soo tijaabiye insha allah waxaa canjeero iska nafaqaysan oo kaaliska arag haddaadan xasaasiye haddaa ku taho kaleeto ukunta waa ka dhaafi kartaa yoogadka kale ku darsan kartaa haddii ay yoogadka haysanin qasab maaha inaad ku darsato laakiin ani maadaama guriga uu ii yaalay oo kale ku darsaday kadibna cusub badan ayaa usoo dhiibay kadibna waxaa mashiinka ayaan lasoo orday wiifi hab biyaha ku darso kaaliska aragda canjeero sida loo garaaco waa garanaysaane yaa hadal ayaan ku daalin insha allah soo canjeerada ayaan hadda soo garaaci doonaa oo soo qasi doonaa meel kasta waxaan ka dhigahay derbiyo meel walba waa ku finiinjiyo mashiinka waxaan ku nacfirrig oo kala siinaa ma fahanteen canjeerada indhaha dhiig ka keenay dhiigsa mashiinka ugu soo garaacay kaaliska arag ismuudi markaa kasoo dhigay dee waqti badan kuguma qaadanaysa daboolkeeda ayaa dhab kusoo siistay halkaas ayaa dhigi doonaa wax cajiin meelaha iiga fafaniinaha la yaabina gacan ayaa sii mari doonaa insha allah soo intuusan iiga qalin laakiin markuu darbiyada sidaa camal uga fafaniino kale cajiinka uu ku qalalo wuxuu noqonaa قص عليك ما فهمتين هادو waxay noqonaysaa ina ka xoqdo oo ka fujis ay noqonaysaa way dib
soo cajiinkayga marka halkaas dhigtay gacanta ayaa hore u sii marnaa insha Allah koobkayga shaahiga ayaan qaadan doonaa caruurteeda ayaan la fadhiisan doonaa inta cajiinka nooga qamiirayo waa isla arki doonaa soo digsi ayaan soo qaatay waxaan kusoo shubtay hilibkii ayaan kusoo ritay wax yar biyo ayaan kusoo shubay iyo wax yar cusbo dabool dhab ayaan kusoo siisan doonaa inta markii hadda aan dabka la soo ogaado marka waxaan samaysan doonaa insha Allah shaah ilmaha ayaan la soo fadhiisan doonaa cabaarku ayaga la deedeela inta cajiinka iiga faxayo hilibka iiga soo karaayo insha Allah soo waqti badan ayuu haystaa insha Allah soo marka caleenta ayaan waxaan kusoo shubtay caleenta ayaan waxaan kusoo ritay bakeerigaas kadibna biyo ayaan soo karkarsaday dad badan waxaa jiraan aan shayga noocan camal aanan jecleen oo nacabin laakiin ani markaa shaqeynayo kale shaqada ayaan ku bartay waagi hore waxaan jeclaa jiray shayga dabka in la saaro sokor lagu daro la karkariyo la fahanteen laakiin waxaa adigoo ordaya haddii aad shaah cabtid inaad cabtid ama yani adigoo shaqeynayo kaleeto soo caleenta waa baranaysaa caleenta biyaha lagu dhex ridayo waa la qabsaday hala yaabin insha Allah halkan aan soo fariistay gabadhii yarta ay ag fariistay iyada wax yar oo caawimaad u baahan ilmaha waxa waaye subaxi horeeto ku dhib qabo quraacda ma jecla inta badan maanta dhan way hadlaysaa maanta dhan way iswalwalaaqaysaa mar waxay ku leedahay ma rabi mar waxay ku leedahay waa dharagsanahay kaaliska aragdee haf ayaan soo dhahay waxaan u imaaday digsigii oo gursaday ayaan u imaaday kadib waxaan ku shubay saliidaan ku shubay kadibna basashii ayaan dhab kusoo siistay noo wareeraa lahaa ma fahanteen maraqaan kaaliska arag soo aniga maraqa inta badan waxay jecel yihiin familkan maraq gaduud maraq cad maba la jeclaba yaanyo waa in lagu daraa qasab waxa ay yaanyo in lagu daro soo haddii canjeero lagu cuno iyo haddii kaleetaba eega shaqadooda maaha soo yaanyo ayaan kusoo daray 3 xabo yaanyo burbur ayaan soo jarjaray kadibna waxaa waaye wax yar oo biyo ayaan ku daray kadibna daboolkiisa ayaan dhab ku siistay birta ayaan soo saartay canjeerada birta ilaa ay xamar laga keenay faantan safar dheer soo gashay bir aan laga sheekay karin waayo oo laga hadli karin waliba maalinta ugu dambeysay inta igu soo dhacday inta soo qaato ayaa degdeg ku soo qaatay marka canjeeradii ayaan waxaan rabaa in isdhex geliyo shaayigii kulaa cabay ogeedeen oo caleenta lahaa ayaan waxaan sameeyay ayaa cajiinka ku daray Soomaali wax xasuustaan waagi hore markii canjeerada waxa lagu dasi jiray shaah kuleel lagu dari jiray markaas waxay noqonaysaa fash kaaliska arag lagama hadli karin faatan caleen kulul oo shayga yani shaah kulul hadii lagu daro canjeerada inaba caadi maaha soo birta inay kulaato waxa ku ogaanaysaa biyo yar ay xafaf soo sistay war dadka hore aan ka soo haraya hay la yaabeen okay anoo yar oo 9 jir soo adeegi jiray ilman waxaan jiray soo marka waxa waaye lagama hadli karo canjeeradeeda dhab soo sistay birtaabadii birta markay soo kulaatay canjeerada ayaan hadda ku shubo doona insha Allah kaaliska arag lagama sheekan soo xabadii ugu horeysay canjeerada ayaan hadda ku soo shubanay kaaliska arag inaba caadi maaha bismillaah ma sha Allah soo waan soo daboolna xabadii ugu horeysay kaaliska arag ay ku soo bixi doontaa canjeerada ka hadal iyo midnaba ma kareysaba hugun iyo hadal midnaba kareyso soo xabadii ugu horeysay saas ayaa uga soo baxsanay halkaas waxaan ugu karsamaa maraqayni soo maraqa waxaa idil wadaagi doonaa canjeerada horta hurduba doona laakiin maraq tartiibkiisa ayuu bislaanaa soo labadaba isku dhex wadaa digsiga dabka maraq markuu inoo saaran bardhadii adduunyada wixii dhan ku soo dardarsaday soo kaaliska arag waxa labada gacmood ka wada shaqay ma fahanteen ما شاء الله تبارك الله إنه عادي معها عدكي هادو سيسي كالكل نقضو إيقارا لنقضا كرا لنقضا قبدو مقالد مرمارك خاركود وحاواي عاجز آد تربضان هادو مقال كانو كاليتو معناتا أسوق لنا شالي دو كاليت إنا سوق لي عربي لكن وقتك أي يسامح واي مرمارك خاركود وقتك يمسامحايو إن مقالك هدي لدو وحو بهاي عد إن لصارو العضيو عضينتن وحاواي دو وقتي قادنسا marmarka qaarkood guriga buuq waa la iska buuqa caruurta guriga joogto marmarka qaarna waxa waa aniga iska caajisan marka caajiska Ilaahay naga dul qaado inta xanuunsan Ilaahay caafiyo inta caafimaadka qabtan caafimaadka Ilaahay ha u siiyo kaaliska arag birta xoogaa markuu iiga dhigtay xabadii labada canjeerada markaas waxaan sameeyay warqad saliid yar inta soo marsaday rag ku saystay kaaliska arag canjeeradeen halkaas ayaa ka sii wada doonaa hadii aan dhaho canjeerada anigoo wada dubay ayaa muuqaal ka soo wada gelinaa muuqaalku ugu dheeraana soo muuqaalka xogaa waa soo gaabiyay ما شاء الله تبارك الله حبدي وقدمت عنجرة أيام كسر صار كالس كأرك حبدات عنجرة ملودات حب عنجرة هدي أد هست الصباك وتكوني كرتا يقط كيدون كذا هدي أد مرق عشان وكوني كرتا صدق سي هالكسر كسر وريجي هالمشان سك أيام صار تحضرتان
kadibna waa kasahay maraqii nyaayada wuu soo burburtay kadibna baradhada ayaan kusoo daray dee kaaliska arag lagama sheekeyn karo haddii aad jecleen nyaayadoo kale waa ka dhaafi kartaa maraq cad oo kaaliska arag laakiin guriga maraq cad waxaa waaye waxay ka tahay heerkal matwacduuna ka tahay lidhaa ma fahanta maraq cad maba rabno nyaayo haddiisan ku jirin maba macaanaba ka sheekeeya bal dadku way kala duwan yihiin laakiin ani ahaanteyda haddii aan maraq ku cunayo canjeerada oo caadiga baradhada lagu kariyo waxaan jeclaa inaan ku cuno ii sheegay maraq cad laakiin inta kale oo iga soo horjeeda mudaharaad ma maqasheen mudaharaad hadaa maqashay mudaharaada lagu qaaday soo laakiin aniga maraqaygu waa ka duwan yahay maanta maraqan kaleeto waxaa waaye caruurta iskale kan soo markii waxaan kusoo darsaday ima oolin kabsar caleenta oo yacni caadiga ah oo diyaarsan imaysan oolin mid barafka ayaan kusoo shubtay kadibna basal iyo barbarooni ayaa baf kusoo sii feera usoo geliyey kaaliska arag halkaas ayaan dhigtay digsiga saliid ayaan kusoo shubtay oo inoo kululaatay marka digsiga basasha iyo maxaa la dhahay sheeg maraq digaaga cusubada kaaliska arag kilidii ayaan kusoo shubtay 4 xabo kili si xoogaa waaweyn ayaan usoo jarjartay intaas aan kusoo shiili doonaa 1 xabo basbaas ayaan dhexda kasoo dhigtay lagama sheekan karo dee inaba caadi maaha waa u xiisa ma fahanteen waxyaabaha qaar marmarka qaarkood haddaad u xiisto kaa qabanaysa ma jirtaan laakiin aniga ma ihi dadka maanta dhanaankii waxaa raadiyo marmarka qaar laakiin waa iga qabataa markuu dameer qaaq dhamaal dhahay iga qabataa soo basal ayaan soo jarjartay kadibna waxaan kusoo darsaday barbarooni intaas wax biyo ee lama taabsi doono insha allah intaas si fiican isku soo dhexgelinaa marka kilida iyo beerku waxay ku fiican tahay saliido kulul inaad ku shubto ani ahaanteyda ka hadlaa marka ani aas ka hadlo waayo waxaan diidaa inay kasoo yacni hadhow waxaan diidaa ii sheeg dhiigga kasoo shiira ama dhiig ku harayo kaleeto si fiican usoo shiila ayaan jeclahay kadibna waxaa kusoo darsaday basal baar ayaan kusoo darsaday ama basasha lagu darsado sambuusaha ayaan kusoo darsaday kadibna intaas markay si fiican isku soo dhex gasho kaaliska arag iga dhadhami xabado waa lahaa ma fahantay in diyaar tahay in kaleeto biyo dhan lama taabsi doono kadibna saxankeyga ayaan soo diyaarsaday kaaliska arag inaba caadi maaha inta hadda isku hesho basbaas leh dhanaantaada labadaada xaba canjeerada qaado kaaliska arag lagama sheekeyn karo inaba caadi maaha soo muuqaalka inta haddaa inala soo gaarto waxaan kaa codsanaa muuqaalka inaa noo sheergeyso like-ta aan commentiga nagalow insha allah waa mahadsantiin